qofka saddexaad waxa weeyaan boqor buur madow oo hawshan intaanan labadeedu wada hadal isagu isxilqaamay oo hawshan galay oo caaqan intuu uu ka dhiidhiyey ayuu dadku garanaya u diray waa loogu yeedhay way wada hadleen wuxuu yidhi wuu la sheekaystay bal warkaagiisii sidee wax u dhaceen sidee wax u jiraan wuu u warramay wuxuu u qirtay kuma ban fariimayo boqorku wuu nool yahay waa markhaatiga nool wuxuu yidhi gabadhayda waan ku khaldamay waa xaaskaygii waa ooridaydii waa marwadaydii qaladkaa aan sameeyey marada igu celi maaragtay magtana iga bixi mooradana iga bixi xaalmarintana iga bixi kolkaa isagu wuxuu ku talagalay boqor buur madow inuu gacmo geel jiray hoos baa loo dhaqaaye intayna ceebtu ama sii weynaan ama aanay isku tuurtuur noqon inuu isagu dusha u rito oo hawshaa ka odayeeyo waa sidii dhaqanna lagu arki jiray qof damiir leh ama qof ummad maaragtay u ah uqaal boqor ama suldaan ama ugaas u ah falkii u yeeli lahaa ayuu ku dhaqaaqay qoladii jilibkii ninka caaqani ka soo jeeday baa tiri ninkani wuxuu nagu dooranayaa magac annagaa isku filan reerkaygiiyo inuu baabiyuu rabaa annagaa ninkan inankaygiiu yahay hawshiisa faraha nooga qaad arrintii dhanka kalea loo rogay kadib annagaa wada hadallay wuxuu yidhi farxaanow weji kale baashii yeelatay raggii waxay yidhahdeen bahashan faraha nooga qaad hadalkii ay tiri safiya tusmo walaashay qaali halkay kuwaasi sidaa khaldan uga fikiraya iyadu sida wanaagga ka fikiraysa leedahay arrintii in la dejiyo oo maaragtay la damaso oo aniga magacayga dad ku dhintaan ama dagaal ku dhaco ilaahay baan ka hoosgalay farxaanow qofkii hadlaya bliase inuu maaragtay colaad la horiyo ma rabi wixii igaadhay marka waxa weeyaan dee calamtarana soo dhaaf weeyaane bahashii caawa waxaan u siixan waayay ilaa shalay aan u soo jeedo inuu gabadhayada diamanta ah waxa weeyaan dee una geyin ya hawl sidan iminka nigeria jamaicanka london waxa hablo soomaaliyeed balanbalay ee lagu sameeyey madiido ama la baabay marka dambe isa soo garta oo maaragtay waa goor fare xeeriya fandhaal kala dhaceen ya balanbalaysa london way badan yihiin gabadhani uma qalanto qof ay isku wada jaan qaadi karaanna ma ahayn ilaahay baa wax intan ka waday waxay ahayd maaragtay mucjiso ilaahay ugu dambi dhaafiyey walaashay qaali safiya tusmo hawshii aan sugaynay maslaxada laga taliyo oo iyadiina mar walba ay leedahay aniga in la ii aargudo oo ximiyataabad hay noqoto ma doonayo oo magacayga dagaal uu qof ku dhinto ilaah baa iga sarreeye ma dhisayo walaashay waa afkeygii inuu qof ku dhinto ama wuxuu ku gaadho dembiga anaa qaba aakhira halkeen maraya magaxumadii ama dhibtii laygu sameeyey inaan dib dad u geysto gabadh innocent gabadh aan waxba ka ogeyn oo dulmiga iyadu sameyn inay tolkay hay dilaan ama nin hay kala dilaan dee waxa weeyaan arrintaydii unbaa meesha lagu sii galgalanaya tolkay maaragtay u shaadhigan welibana walaalkeed xadhkaa lagu hayaa inuu la dhex maro oo ku alle ku caaqan u arko haw maaragtay ka tallaabsado eese iyadaa ka hor joogtay oo annagaa ka hor joogno oo intii garaadlaa ka hor joogta hanjabaadii iyo lilmadii walaashay ka dhacaysay haddana inuu maanta intuu xabad u qaato uu geysto meel cidlo ah oo sidaa yidhaahdo oo uu baaskoolad madaxa ka saaro imikaan ku gogeyno bilaacaddaa kugu rida anaa meeshan xakuma nayaa siduu ula hadlayay qofkii damiir leh ee dadnimo leh ee soomaalina ee dhaqan leh ee diin leh dhiiggaa kacaya ana xalay haddii aan ninkaa
meel uu ka dhow yahay aan garanayo wallaahi oo billaahi tiirkaa lay saaree wax weeyaan labana kala goyn lahaa dese ilaahay alxamdulilah rabbilcaalamiin waa bir ramadaan iminka ma xanaaqsanin ma caraysnin adduunka wax walba ay dhacaanoo marka wax weeyaan dee magafa inuu hargeysa ku nool yahay ilan shabaabku waa kuwa dadka way dilayaanoo nafta ka baxaysa dee walaashay intaasoo jeer baa la dilay ya oo taas u dambeysay meyd maxaa u dambeeyay kaa la sii sido waxa weeyaan gabadhii waa in magteedii la bixiyo dhiiggeygii la bixiyo iyo gefkaa la galay sidii tolnimo la arki jiray ee dhaqan la arki jiray ay geedka soo fadhiistaan sheekhalbeledkii waxay xurmaynayeen inay inantiisii suuqa la warwaro oo mid caaqahoo diin iyo iimaan lahayn takraar labaad isagoo diintii rab ilaahay caayaya buu miiriyaha ku jiraa ninkani waa horta isagu waa dee waxaweye diintu ka baxay because publicly ayay ugu jirtaa isagoo diinti iyo ilaahay caaya marka waa inuu horta dib u muslima oo maaragtay ashhaadada dib loogu qabtaa waa in anaga ninkaasi uu maanta hargeysa tamashlayn uu kolba Facebook iyo kuwa malayacnaya halkan sidaa yeelayoo ma qabinoo waan qabayoo qabniin iyo wixii telefara ka hadde xabadda xadaysatid Amnesty International waxay ku taalaa Muqdisho xuquuqul insaanka xafiisyadoodu Muqdisho ku taalaa ku yaalaan Somaliland waxaan ka rabnaa sidii ugu dhaqsaha badan leh sharciga inay dabaqaan oo ninkaasi noo laafiyoon hargeysa dhexdeeda waa ina sharciga wax weeyaan maanta waxa lagu hayaa wax cad ya inuu xabad intuu qaata baaskoolad inuu meel ayna gelinayn intuu la tago ay tiraahdo sidii u hadlaysay calooshaa ku xanuunaysa horaad ii biraysay warniyo inan meelo qaarkood markaan marayo isma kala garanayo soo markaa waxaweyaan dowladdaasi waa inay dariiqiga marta hadday socon waayaan annagu sharciga gacantaan ku qaadanaynaa Amnesty International iyo Human Rightska iyo gabadhu waa Maraykan oo maartay saa loo bahdilay sidaa laga yeelay shabaab hele terroristigu hele magafa adduunka waa ka mamnuuc meeshii lagu arko waa lagu toogtaan xabsi daayin weeyaan ninkan waxa weeyaan waa in la xidhaa ولمن حبس داين لو حكومة صوبتها إنتن أنا جيل يرى لبحيو يمقلب بحيو ونقلب ونقلب وينتهي هديت هاي قفلو أركيو وكن يرتبان كن أو حبلها الصوماليات أي شرف تيليين بيلادها سفية تسمع أنت وحي إيجيسي lacag yar suuqada deeta waa irka soo dumi beeran lahayd inuu lacag inta leeg uu ka qabo uu saa ugu hanjabo uu lacag inta leeg ka qaato oo ka dhigtaba resource meeshii socialki meeshii lacagta laga qaadanayo socialki inuu ka dhigto ya waxa weeyaan waa nasiib daro inuu intaana magaalada iyadii walibana kaaga dareen han warwar ka haynay inay bixitaanka ay baxayso ma hargeysay ka dhooftaa mise jigjigay ka dhooftaa farta dhuntan koyn boorama intaasoo habeen kolba xaafad la seexinay ya ayaan goobjoog ayaan u ahaa markhaatiga nool oon saacad ula jiray marka waxa weeyaan maanta gabadheedu way noo bad qabtaa Soomaali intii sharaf iyo qiimo leh iyo dadnimo leh way ka wada qiiroodeen siiba dumar oo dhan waxay noqotay tusaale ay noqonaysaa